tiraahdaa anigu waxaan iska wax beele laakiin walaalkay waxa helo anigu waxaan iska gaajoode laakiin walaalkay ha dhargo nabigeena sallallahu alayhi wasallam miskiidkiisa nin baa ka sara kacay baahi buu nabiga hortiisa ku sheegtay oo yidhi innii rajulun majhuudun nin baahi ay hayso aad u baahan baan helay marti qaado markaa buu nabigu yidhi halkaan ii fadhiiso saxaabi buu nabigu daruuri orod reerahaygii bal wax la quuto inay yaalin iga soo ogaada sagaalkii aqali nabi maxamed uu lahaa baa la soo maray xaasaskii nabiga hal jawaab keliya laga soo helay jawaabtaasi maxay ahayd laa waladii bacataka bilxaqi maa cindii ilaa maa haweeney kaste waxay soo tidhi soo sheegtay tidhi ilaaha xaqa diinta xaqa kula soo saaray baan ku dhaaranee aqalladayada baad la cuno afka la geliyo ma yaallaan biyo la cabo mooyaane sagaal aqal baad la quuto ma yaallo maxaa yaalla keliya biyo innakana maanta bilo dhan iyo sanado dhan waxaan cuni lahayn innakoo haysanna umay dadkii haddana faqri ka baqayaan marba hadduu qofku faqri ka baqayn waa faqiir ogu soma annaasu fii khawfi lfaqri annaasu fii faqrin fii khawfi lfaqri marba dadku hadday faqri ka baqayaan waa fuqaraa sagaalkii guri ee nebi maxamed uu lahaaba la soo maray jawaab keliya laga soo helay jawaabtee ilaaha xaqa kula soo saaray baa ku dhaaranee baad la cuno aqallada ma yaallaan biyo la cabo mooyaane markaa buu nebigu fadhiistay wuxuu ihi war ninkaa martida yaa ii marti qaadaya buuhi maanta yaa ii marti qaadaya abu talxa sare kaco yidhi anaa marti qaadaya raac abu talxa abu talxa reerkiisa waxa yaalla kama warqabo guriga markuu soo galay ninku dibadduu joogaa gobashiibuu u dhigay hal cindaki shay buu yidhi wax la cuno ma haysaa markaa bay tihi may carruurta yaryar cashadoodii maayna wax kale aqalka ma taallo carruurta cuntadoodii wax kale aqalka ma yaallaan markaasuu ku yidhi ciyaalka si uu bal u yar ciyaarsiiyo seexiyo intaad iyaka ugu tala gashay ninkaa dayfkaan soo geliniye isagaan hor dhigaynaa daadna markuu soo galeen intaan hor dhignay isaga innaka faynuuska inoo dami oo aqalku mugdi ha noqdo labadeennuna afkaan dhaqaajinaynaayo si dad wax cunaya ayaan iska dhigaynaa buu ku yidhi isagu intaa ha cune ilaa ninkii dayfka hadduu arko wixii aqalka yaallaba in isaga la hor dhigay oo dadkii reerka lahaana ay bilaa cunno yihiin ay bilaa casho yihiin kuma dhacayada inuu cuno markaasaan u raalli gelinna buu yidhi faanuuska demi isagana waan fadhiisin waan hordhigi adigii aniguna hee wa ariihi annaa na'kulu buu yidhi tus si waxaan wax cunayno afka han dhaqaajino ha shaqrayno ubadkii gaajay ku seexdeen saxaabiyadii gaajay ku seexateen saxaabigii gaajo ku seexday intii ubadka loogu talo galena wuxuu hordhigay dayfkii adiga iyo aniga iska soo qaad xilli duhurkii oo qadadii salaadii aan ka soo baxnayo xaafaddii aad timidayo islaantu cuntadii ay nii kala gurtay ayaa laba oday adeeradaayo oo aad filaynba kugu soo dul dhacay seed odhan lahayd hoteelka tega baad odhan ka ugu fiican waa kee waa kaa lacag soo saarayna laynaguma talageline dee waa laysa soo sheegaaye walaba hoteella maqaaxiyaha taga weli way furan yihiina gaadha waa kayna ugu fiican waaba ka naxaynaaba dayfka waa ka naxnaa maanta inagu muminkuna waxa uu hayo waxaa loogu talagalay dayfka wax kula dayfka man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhiri falyukrim dayfahu dayfka waxbuu ku leeyahy waxaad hayso saxaabigii sidii buu caahbeenkii ku seexday waagii markuu beriyu gacanta soo qabtay ninkii dayfkii oo maskiidkii nebigu keenay sal alla alay wasalam markaa buu nebigu yidhi yaa abaa talxa ila nebiga waxyiga ku soo degaya moogta xalaytoola qisadii guriga ka dhacday warkeedii buu nebigu hayaa yaa abaa talxa labayk wasacdayk yaa rasuula allah weliba saxaabadu cajiib bay haayeen markay nebiga iyo dhexdooda ay joogaanna waxay muujinayaan rag waxay muujinayaan aynan baahi haynba qosol iyo farxad iyo rayrayn iyo bashaashad bay muujinayaan laakiin markay aqaladooda ay tagaan ilaahay baryayaan ducfi iyo fuqaraa iyo waxay muujiyaan iyo tamalluq ilaahay bay gacmaha hoos dhigtaa innagana maanta ninka dhibaato yar ay ku dhacdo halkee laga akhristaa wejigiisa maxaa ku helay war xaalkaagu ma fiicna maante war balaayaa dhacdo la ii soo sheegee buu ku odhan war muuminku balaaye ma sheegto kow wejigiisa in laga garto laga akhrista maaha yaxsabuhum aljaahilu
أغنياء بسبب إيه؟ من التعفف بإلهي جاهل لك مقالة مدينة كل عصب رميقة صحابة أنا العلم أولهين مقالة مدينة مركوي مادو دورسوني دا صحابة باهدة بني آذنك أي كد دورسون يهين باهدو دا أي قرسنا يعني قدوه كو قرسنا يام وحلوم ملينا يابا إلهي إنهين نمال لعاق كفر ديوم القبنا لعاق ماها وحي لعاديهين وحي لقص ليان لعاق ماها بل دورسون يهين وباهدة بني آذنك إنه اللسان الحال إيه اللسان القال منا أي كل شيطان ولا فهمه أي أسكت دور أيام بإلهي ولكن النبي وحي قال صلى الله عليه وسلم برقاس النبي يقول لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة يا أبا طلحة حليت ولا ضيف كين سنة ضمها موسين رقبتين إلهي بار عليك النقض كفر حيب رسولكم يلي برقاس القرآن كقصود دقي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أنكو هنقاجونو معناها آيات قدهان وحي نقن كوكو أها أنكو قاجها كسيحنو لكن ولالك يا مسلم قهي يونا قاجنا قسيحن ورنالو شاء الله ينصو عليه آمين ده هذا ولا ليال والله القرآن كبار قاعد خرجتك إيه هل كمانت إنكو أتاقنا هي كالأرض والسماء يكو حنولادو ولالكي هاد انت اسمي لهين وحي لغو التربية ديو لغو أبوري ودقن يدين لغا ديجي إن الدين شادو كامل لغو تمدوني ساها إن إيمانك أغو كامل لغو تمدوني ساها إن الجنة هشي مدوني ساها نفتا لو حال لجعشا ولالك لجعلو نفتا لو حال لجعشا هاي ولالك مسلم كلجعلو كانوا هنقاجودو لكن ضيف كيغو هاي يدرق أنا هندنتو ولالكي هاي نولادو في غزوة يرموك صدح صحابي با يكو داوع على سوق قالوا نفتو قيق داهيسو وديك بحي اكرمها كمد هذا رضي الله عنه مرقاسو بيو إلى سوق قال بيا لغو قبطا إلا جالك لما هاي بيا لغو لسو أرضي مركو بيه أفكا مركا لودو ويبو مقلي كي كيشيو يسوقنا نفتو أي قيق داهيسو أنا كيسكا كي دايو نك هبا يقدرني كابي أهل قادا كي بقى لو قبتي حدنا كينا وحوري هي أنا وامن درون هي كاكلا لقادا كي كلا على لقاري كي كلا يديها كاكلا لقادا صدح لودي سدو نبنيك كلا بيها وقدر بدايي أي نفتك وضع دعديك ومرنا أنا كبن بلي أنا هندنتو ولا الكينا هنولاد أنا هنقاجودو ولا الكيها يدرقو لولا شمال الزمن كان واسده أنا هنولادو كنا هدنتو أنا هندرقو كنا هقاجودو وحان هايستو أنا إسكالة بكورا هاي كانوحو هايانا هاي أنا يقفي عنيهين أحوال الله إسكما أقول ما تهدو نولا الله إسكما أقول دقال الله إسكما أقول نبتقل الله إسكما أقول أمن الله إسكما أقول عز الله إسكما أقول وهي في عم بابو كله يعني والبا أنا يقفي عنتها دين تانو صدا ما قبطة دين تانو وحي قبطة وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما بالنبي يقولي وحد نفت على لجع شهي ولا الكاغا مسلم كان لجع له مسلم قمان أو توصل بالنقني برسولك كايري صلى الله عليه وسلم إن إسلام لماذا هذا صح نقطه لما يشترنته وحكو حرن إن هذا واحد نفت على لجع شهي وناقو أو دن أعطتك كلا لجع لاته ولما النبي يقول مورا مسلم كا للناس لا تكلم النبي لا تكلم جعله لا تكلم جعله صادرتين رجينا أنا خيارتا إلهي جل وعلا نعمة إسلام لماذا أي النبت قليل وضنك عن كوهي سنة أرزاق قد وضنك كوهي ستان الله ينوزي هذه كو كل شكرين الله ينقدره سنة دي بربان ملينا والله بس سنة نيجا مقنع وان قهامو يا بإسلام مركان بدي
waxaasoo hantiya Soomaali baa leh runtii waa ku farxaynaa masaajidiina meel walba way nooga dhisan tahay maanta Sheekh Ismaaciil baa maanta igu lahaa 73 baa igu horeysay buu ismi oo nimaado 73 masaajidka eerka ku yaalan garan buu anigu maanta nimsay miskid ba ku taala xaafadan masaajidii madaaristi cilmigi quraanki macaahidi culumadii ganacsigii guryihii takuwi qurbaha ka soo yaacay ubadkooga la soo yaacay meesha maanta inta badan ay yimaadaan ay diin ka dugsanayaan waa magaaladiina Nairobi weeyna xaafadda khaasatan marka nicmadaas ilaahay haynoo adkeeyo dalkeenii aan ka soo jeedina nabadiisa Allah haynoo sii adkeeyo aamin dhahada nicmadaas sidee ku noqonaysaa sidee ku ilaashamay الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بإلهي الذين كوي إن مكناهم في الأرض بإلهي حتى نقولك التمكين إياك ونقولك إلهين آن إياك إنتون كان آن دجنون كأبورنو وحي إلهي أفر خصلات بإلهي كشيء أفر خصلات وأسباب التمكين بعلماء ليهن نقولك اعتمادين إلهينا تمكيني مانتا أغلبها أنت لأجنا أنك دسني ganacsiga Soomaali maanta adduunka ugu badan maanta halkan ay ku leedahay halkan ganacsigana maanta aan ku leenahay madaarista iyo masaajidda quruxda badanna Ilaahay uu nagu siiyay asbaabta inoo ilaalinaysa bay culimadu leeyihiin markii aayadda Quraanka la sharxay waxa weeyaan waa afarta khasladood ee aayadda ay sheegayso aqaamu salaata ba Ilaahay kuwa dhulka aan tamkiinine dhulka aan dajinay dhulka markaan dajinay ee tamkiinine ba Ilaahay shaqada ugu horeysay qabanayaan waxa weeyaan salaaday oogaan baa Ilaahay yiri وآتوا الزكاة زكاتنا وإلا يمادان ويديبان ويبحيان وأمروا بالمعروف وناقنا ويفران ونهوا عن المنكر حماهنا ويسكربان أفر خصل ضد ويان أسفرت هدي أمد ميل جوكتا أي التي ما دبي يعلمد ليهين أمد داسي وحكر دم ويان عيد وحكا قادسي مجرته وقولك يا اسكله إلهي بالي إلهي أيود جيامة غانا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قولك إلهي بالي أسباب تقولك اللغو دقا صلاة داوه الرئيسة زكاة الله إلهي وحقق والحقق الله مريا كو حكتا وناقا أمد الله شاقو خير كي دعوة الله شاقيا كو حكتا منكرك أمد الله قربوا لغا الزوليا كسي حكتا مارك الهاريان أفرتا خصلضو أسباب التمكين أركا هانتيغا انتا لأيغا ودن كان عدقشتين وحا كو إلا لنا ينابع علماء ليهين صلاة دي واضح إيسان الله يني زيادي كل الزكاة نواد بحسان بانو ملايين إن شاء الله هذا زكاة نبحية حصنوا أموالكم بالزكاة نبي حوله إن حرس حق وحاذو قد اكتابوا نبي للزكاة حول الزكاة لقد بحيي بري يبض بري يبضكم الله ما بالي هذا نقاش حول الضيعمي أو قبتي أمل مي وحول حق إلهي اللي قوله وأنا اللي قوله لحق إله لقمي إلى المركة وربع مركة ضمان أنشران شدان دونين الربانيقا إنان قالوا هدان دونينو وإنان أفر تصف الله ينقهلا صلاة دي زكاة دي دعوة دي دعوة وين نقول يرتاح لكن رين يروي علماء أمبات كل ديسين دعوة علماء أي هيانا واتير راغبين تدك خير كجعلا خير كجعلا بي هيان دعوة دودي وبراروجين يعني وحبي بريان لكن انت ما انت مسلمين انت مساجد علماء كحرا يا انت كحرنين يا ما بدن يا ما بدن ما انت المسكيت كشيء ظهرك هن عبانا يا قبل مسلمة ايس عاشقين قبلنا قبل في عم بيحيدوا نيك واسكيل على السن شرط بيكون حرتين الإسلام والإسلام يقول أبي هذه يدك يجيب وشيكتين نيك هو إسلامي مركو هو يجي ديار صدق دليل عروس بنا قبل هلا يهويو أيوة أبي هذا لك افتما وحكوي رواد إسلامته حل مالنا مسكيت ككومان مركين السداك ودعضي وعود أدنكم مركو دعوه جوابته واسكفوا ضده وكل شيء أدنكم مركو دعوه مسلمينتو إلا مسكيت كسوق شاء إلا بلانك يكون حد أبني
waliba inta banaanka ku haraysa badan buu marka inta soo galaysa tirada yar aanu kuma biirine inta banaanka joogtay tirada badan la kamid ah igu tiriya kuwa bukay soo waaqع ma hadalkaas waaqع sooma marka culimadu dacwada ay wadaan runtii waa dacwadii dadkii khayrka jeclaa marxaba jazakumullah waxay naga maqan marka dacwada leer dacwatu ghayr ar-raghibin dadka aan khayrka jeclayn ee culimada aan ku xidhnayn ee masaajida aan ku xidhnayn dacwadoodii baa ya ka gaabinaynaa Djibouti waxyaabaha ilaahay noogu nicmeeyay waxa kamid ah imika Afrikada ininka naga sixiga annaka Soomaalida dadka Soomaali ku hadla maanta de halkana ugu sokayso degantihiin halka wixii ka sagay waa qaaradda Afrika wax la galayo Djibouti waa jasiirada al-Arab aan qarka ku hayna annagu laakiin ilaahay fadliga waxa nii sheegay jamaacada Djibouti ka baxa waa Djibouti oo isticmaalsanayeen Faransiiska boqol iyo in ka badan oo dadkiisa lumiyay maanta dhalinyarada reer Djibouti haddaba aan la hadlayo Niger jamaaca ku maqan Niger waa Niamey way ka soo warbixiyeen waxaan u tagnay bay ku leeyihiin tuulooyinka qaarkood dad boqol muslimiin oo salaad baan tukanayn oo maxaa u tukan weeyday marka la yiraahdo annaka sheekh awliyadeeda naga tukato lacagta siinaa jamaacada ka soo waramaysa hadda jamaaca ku maqan Senegal wala mid dad baa waxa aaminsan sheekh hebel baa iga tukada aniga xagu ku tukada xajka uun buu tagay inta lacagta ka bixino salaada xaramka lagu tukado waa 100 kun soo lama oran ha laba bilood ma ku i'tikaafi uno 5 kun qof isaga ka qaaday salaadoodii balka warama Mali Senegal Niger Togo Benin Ivory Coast Burkina Faso Guinea Conakry intaas wadana ni sheegayo jamaacada reer Djibouti way ku baxaan Senegal hadday joogan Niger hadday joogan Tanzania hadday joogan Burkina Faso jamaaca hadda u socota Uganda jamaaca u socota Burundi jamaaca u dirnay maalin way too tagtay dadkaasi waliba dhalinyarta sida u baxaysa ni sheegayo dhalinyar diin dhigatay hamoodin inay yihiin may waa dhalinyartii iskoolada jaamacadaha Faransiiska ka soo baxay daalku u talagal inuu lumiyo ayaa inta ilaahay dacwadan uu siiyay ayaa intii culimada ay ka maqleen intay qaadaan bay wadanka adduunka la dhexmarayaan arumadu maanta way gubanaysaa olol ba ka baxay maanta ummadda hangaadno oo insha Allah ragina akhyarta ganacsatada insha Allah dadaalka diinta inuu qaybtii inaga aadan ka qaata insha Allah dhahada yaa u diyaar inuu ka qaato qaybtiisa Allah inagu afaro Allah inaga aqbalo bishan September aakhirkeedana ijtimaaci Hargeysa jira oo 23 ka dhici doona usbuuca dabana mu'tamarkii ayaa dhici doona halkan ka hor lagu qabto culimadu hadda ay u socdaan maantadan culimadu u socotay maanta in la qadeeyo caaway baxayaan marka dadaalka diineed inaguna qaybteena inaga aadan ha ka qaadano waqtigeena ha bixino dacwada waqti ha loo soo gooyo war dukaankaaga iyo meheradaada haddaad waqti u sameeynin ma iswadaya tijaaratu diin marka inay iswadasadee ku socota marka soo in dad waa inay diintu yeelato Soomaa marka insha Allah dhaqaalaheena maalkeena waqtigeena aan wada bixino jamaacada dacwada tabliiq horta dhaqaale ma qaataan ogaada anu dhaqaale inaga dooni mayno ay waqtigiina u baahanahay inaan nasiisaan ninka taajirka inuu bixiyo maxaa u fudud ninka faqiirka inuu bixiyana maxaa u fudud isagan soo sama kala jeedi haddaba marka taajirka waxaan inaanaa waqtiga bixi ila waqtiga kugu qaalay adige faqiirkana waxa la yiraahdaa lacagta kugu qaaliya soo maaha lacagta jamaacada ku raaci lahayd adigu soo qaado reerkaagana masaarifta uga kaalay marka insha Allah dadaalka ha ziyaadino ducadana ha badino Allah naga aqbalo hada wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa du'ayn doona sheekha hadlay wa du'ayn doona insha Allah bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee Daarul Hijra